ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Simad oo kamid ah jaamacadaha ku yaala gobolka Banaadir ayaa tirahan waxay gaarayeen 620 arday kuwaasi oo wax ka bartay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Simad bixiso. barayaasha jaamacadda Simad iyo mas'uuliyiin kale ayaa ku dheeraaday ka taariikheynta ahmiyadda waxbarashada iyo sida laga maarmaan u tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan. qalinjabinaysa oo soo dhamaystay barnaamijkii ay jaamacadda ugu talagashay. gudoomiyaha Primary Bank oo ah bangiga xafladda qalinjabinta ah ee Simad maalgeliyay ayaa asna dhiirigelinta qayb ka ahaa iyagoona sidoo kale sharaxay waxa ay qabtaan. Primary waa bangi ay leeyihiin dad Soomaali waa bangi islaami ah oo dhammaan waxa uu ka shaqeynayaa ay yihiin shariica compliant. وبني بدون شريعة كاملة والوضع ودك هو ومركز الريان إن الآن شقوي كيس عليين وشريعة كاملة. عبد الرحمن محمد حسن أدواء ركتر كجامعة Simad ayaa ardayda maanta qalin jabisay wuxuu kula dardaarmay in waxa ay bartaan dalkooda wax uga qabtaan. marka aan kula dardaarmo maanta xidhiidhaysan inaad ku mashquulshaan dadka hadii jidku hagaago hadii wadadu hagaagto hadii korontada hagaagto hadii biyuhu hagaagaan hadii everything hagaago waa hagaagaysaa laakiin adiga mid hagaagto oo maanta inaad dhisto jasiirad aad u guriga aad ka dhigto jidka markaad soo baxdana ay walaacataalo waxaana guriga soo kordhiyay maran. ardaydani maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda Simad oo kamid ah jaamacadaha ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxay nasiib u heleen inay ka guulgaaraan dadaalkii muddada ay ugu soo jireen waxbarashadooda. Cabdiraxiin Cabdullaahi Honkabel TV magaalada Muqdisho.